ma doonaysaa in 2025 aad ku hadasho luqadda Englishka ah kaliya tilmaamahan aan ku siinayo wayna raacdaa waa haddii ay ka go'an tahay oo aad doonayso in 2025 aad ku hadasho luqadda Englishka kaliya 4 talaabo qaad. السلام عليكم سورة بدا صاحبيال وحنا إبراهيم آدم وحن مقراتك هاي وأنا أركي يعني دد فرق بدن وأمين سن إن لقطة إنجليش كمركي لبرنا عيو إيه واحد وادك يعني وحركي سا قف أورانا عيو قف كان لغة إنجليش كو يقانا نصيب أيو ليه نصيب أي الله هاي لغة إنجليش كو براتين يعني waxaan adeeg ma ahan nasiib ma ahan wax nasiib u baahan ma ahan kaliya wax u baahan inaad gacan u qaado in aad barato luqadda Englishka macnaheedu ma ahan inaad nasiib leedahay balse waxay ku xiran tahay dadaalkaaga iyo adiga qaab dhaqankaaga su'aasha markaan ku weydiinayo waxay tahay go'aan ma leedahay go'aan cad ma leedahay waxan ma ka go'an yihiin inaad samayso haddii ka go'an yihiin waxan inaad samayso go'aanna aad leedahay waxaan ku sheegi doonaa 5 dabeecadood oo haddii aad ku dhaqaaqdo aan hubo in 90 cisho ee ka dhiman sanadkan inaad ugu yaraan ku hadli doonto luqadda Englishka haddaba maxay yihiin 5 dabeecadood oo aan doonayo inaan kula wadaago mid ugu horeysa waxay tahay dhageyso 10 ilaa 15 daqiiqo maalin kasto yani waxaad samaysaa dhageysi 10 ilaa 15 daqiiqo maalin kasto wax kasta waqti ay u baahin sax so 10 ilaa 15 daqiiqo is enough for you haddii aad dhageysi samayso okay haddaba maxaad dhageysanaysaa waxaan kula wadaagay dhowr muuqaal oo aan kugu sheegayo journalist aad ku xirnaan karto si aad u horumariso luqadaada Englishka haddaba journalistka saraac maalinba journal cusub tag yani ma bacaajisaysidba maalinba journal cusub aad tagaysaa yani kuma bacaajisaysidba halkaasad maaragtay muuqaaladaas aad daawanaysaa 10 ilaa 15 daqiiqo ayaad siinaysaa that's enough for you ha ka walwalin wixii aad daawan lahayd xitaa wixii aad daawan lahayd fartayaan ka saaray waan ku siiyay Soomahan so 10 ilaa 15 daqiiqo maalin kasto dhageysi samee yani haddii maalin kasto 10 ilaa 15 daqiiqo aad dhageysiga sameyso waxaad horumarin doontaa ama aad improve garan doontaa yani dhageysigaaga la qabsigaaga luqadda inaad maaragtay in aad yeelato inay wax ka soo baxaan yani waxaan horumari doono luqadaada so midda labaad aan rabo inaan kula wadaago marka waxay tahay baro 3 ilaa 5 eray maalin kasto kuwama badinayo muuqaalo horan kula wadaagay way jiraan laakiin haddeertan kuwama badinayo waxaan kula yahay 3 ilaa 5 is enough sababtoo haddaba ma haysid 3 ilaa 5 haddaba ma haysid Soomaha so maalin kasta ma baratid so maalin kasto baro 3 ilaa 5 eray okay su'aashaada waxay tahay xageen ka baranay waxaad ka baranaysaa muuqaaladii aad daawanaysay waxaan ku yiri marka hore dhageysi samee waxaad daawatay muuqaalo Soomaha so 10 ilaa 15 daqiiqo ayaad daawanaysay so muuqaaladaasi markaad daawanayso ama dhageysiga aad sameynayso waxaad la kulmi doontaa erayo cusub so diiwaan geli erayadaas cusub 3 ilaa 5 eray ka diiwaan geli after that baro yani naftaada ku taxalooji baaritaan ku samee yani 5 eray baar yani dictionary geli si kale u baar is up to you just baar yani kadibna baro 5 eray kuna dhaqano maaragtay jumlad ahaan u ku samee yani naftaada ku dabaq wax un samee si aad u xasuusnaato 5 eray aad maanta baratay oo aadan mar dambe u hilmaamin okay mid saddexaad rabo inaan kula wadaago marka waxay tahay ku hadal yani ku hadal samee 10 ilaa 20 daqiiqo haddana su'aashaadu waxay tahay yaan kula hadlaa naftaada kula hadal kor u hadal waxyaalaha aad ka fakarayso waxyaalaha hawlaha aad qabanayso English ku samee yani English ku hadal xagana naadi raba sidana sameyn raba waxana soo gadan raba yani naftaada kula hadal naftaada ku daba dadka qaar waxay ku dhahayaan ama macallimiinta iskuulka kale markaad joogto muraayada tago naftaada kula hadal of course ayda xataa waa sax samee yani it doesn't mean yani muraayada maanta dhan hor taagno 10 ilaa 20 daqiiqo naftaada kula hadal you're not crazy ma walid adiga laakiin يعني waxyaalaha maaragtay daily life kaaga markaad sameynayso 10 ilaa 20 daqiiqo saacad ku buuxi 10 ilaa 20 daqiiqo naftaada ku dabaq oo ku hadal kor aad u hadlay waliba ha xishoonin no matter wax dadka kale ka aaminsan no matter wax dadka kale ku dhihi doonaan you not care about dadka kale adiga you care yourself so kula hadal naftaada 10 ilaa 20 daqiiqo maalin kasto naftaada ku dabaq mid afraad rabo markiina kula wadaag waxay tahay akhri samee yani ama book akhri ama website booqo akhri yani asbuuci 3 mar amal inaad akhri sameyso muhiim waay akhriska muxuu ka saacidayaa in afkaaga iyo carabkaaga uu la qabsado erayada markaad ku dhawaaqayso sidoo kale eray cusub xataa halkaas waad ka baran kartaa so akhriska wuxuu ka saacidi doonaa in carabkaaga uu la qabsado dhaqdhaqaaqa yani ama pronunciationka inuu carabkaaga la qabsado ayaa dhici doonta so akhriska kuguma badinayo yani asbuuci 3 mar oo kaliya akhri samee midda shanaad ee u dambayso waa aad muhiim u tahay dhammaan wixii aan soo dhaafno dhan waa mid ay joogteynayso consistency joogteyn samee yani waa joogteyn kaliya inaad joogteyn sameyso intaan kuu soo sheegay joogteyn ku samee maalin kasto waxaan kuu balan qaadayaa 90 cisho ee soo socoto ee ka dhiman sanadkan inaad hadli doonto
ma doonaysaa in 2025 aad ku hadasho luqadda Englishka ah kaliya tilmaamahan aan ku siinayo wayna raacdaa waa haddii ay ka go'an tahay oo aad doonayso in 2025 aad ku hadasho luqadda Englishka kaliya 4 talaabo qaad aniga ku xaqiijinaya waa ku balan qaadaya so waxa rabay inaan muuqaalkan intaas kugula wadaago waxaan rajaynayaa inaad talaabo qaadi doonto 5taas qodobna aad sameyn doonto oo aad joogteen doonto si aad 2025 ugu hadasho luqadda Englishka ku raaxayso noloshaada. Assalaamu calaykum.